Waa maxay oraah? Oraahdu waa hadal gaaban oo macno qoto dheer leh badanaa ay yiraahdaan shakhsiyaad caan ah iyo halyeeyo. Oraahda maanta waxaa leh Messi. Messi waxaa si weyn loogu tixgeliyaa GOAT, the greatest of all times, ciyaaryahanka ugu weyn taariikhda kubadda adduunka. Macnaha hadalku waxa weeye Messi wuxuu ina barayaa in riyooyinka aanay si sahal u rumoobin. Si aad u gaarto waxaad rabto, waa inaad u adkaysataa caqabadaha, waa inaad ka tanaasushaa waxyaabo qaar, waa inaad si joogto u shaqaysaa adigoo quusan. Guusha dhabta ah kuma timaado nasiibka oo kaliya, balse waxay ku timaadaa dadaal, sabir iyo inaad rumeysid naftaada. Lionel Messi wuxuu hoosta ka xariiqayaa saddex tiir: Fight dagaal, inaad adkaysato oo aadan quusan; Naf hurid sacrifice, inaad ka tanaasusho raaxo iyo mashquul; Shaqo adeeg hard work. Ardayda, xirfadlayaasha iyo ciyaartoyda, tani waxay ka dhigan tahay inaad wax barato xitaa marka aad daalan tahay, inaad tababarato marka kuwa kale ay nasanayaan, inaad sii waddo dadaal xitaa markii aad la kulanto caqabado. Yuu yahay Lionel Messi? Lionel Messi waa ciyaaryahan kubadda cagta u dhashay Argentina, wuxuuna dhashay 24 Juun 1987 magaalada Rosario, Argentina. Waxaa si weyn loogu tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu waaweyn taariikhda kubadda adduunka. Messi inta badan wuxuu xirfadiisa ku qaatay FC Barcelona, halkaas oo uu noqday gooldhaliyaha ugu badan taariikhda kooxda. Kadib wuxuu u ciyaaray Paris St-Germain, haddana wuxuu u ciyaaray Inter Miami. Messi wuxuu ku guuleystay 8 Ballon d'Or, abaalmarino badan oo FIFA ah, rigooro badan oo uu dhanka goolasha iyo caawinaad. Sidoo kale wuxuu hogaamiyay Argentina si ay u hanato Copa America, Koobka Adduunka 2022. Waxaa caan ka dhigay Lionel Messi? Lionel Messi waxaa caan ka dhigay xirfadiisa cajiibka ah, joogteynta waxqabadkiisa iyo akhlaaqdiisa ciyaareed. Xakameynta kubadda, aragtida ciyaarta iyo baasaska saxda ah ayaa sababay boqolaal gool iyo caawimo. Shan xaqiiqo oo ku saabsan Lionel Messi. Lionel Messi wuxuu leeyahay taageero badan. Messi waxaa caruurnimadiisa laga helay cudur la xiriira koritaanka. Wuxuu ku guuleystay 8 abaalmarin oo Ballon d'Or. Messi waa ciyaaryahankii ragga ugu horeeyay ee 2 jeer ku guuleysta World Cup Golden Ball sanadihii 2014 iyo 2022. Marka la isku daro kooxaha uu u ciyaaray iyo qaranka, Messi wuxuu dhaliyay in ka badan 800 oo gool oo rasmi ah. Hay'adda Leo Messi Foundation waxay la shaqeysaa UNICEF iyo isbitaallo badan oo kala duwan si ay u maalgeliso daaweynta carruurta iyo mashaariicda waxbarasho.